waxaa sharaf noo amaantay inuu madaxweynaha Jamhuuriyadda soo booqdo oo soo booqdo plantiga ama warshadda soo saaraysa qalabka dhismaha. warshadaanu muddo dheer bay fadhisay ilaa 2016 bay fadhisay oo hawlgab ahayd. hadda ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda wuxuu amray ciidanka asluubta Soomaaliyeed dib u kiciyeen muddo hadda laga joogo 2 bil. maantay waxaa sharaf weyn noo ah madaxweynuhu aad ugu farxay ugu riyaaqay inuu arko warshadii oo wax soo saar wada 4 sano kadib oo ay hawlgab ahayd. hadda qaybaha noo shaqeeyay waa qaybta muxuu ahaa bulkeetiga, qaybta interloga iyo qaybta tubooyinka iyo qaybta soo saarta. mar dhowna insha Allah waxaan galaynaa qaybta concrete soo saarta iyo qaybta laamiga soo saarta. warshad waxaa jirtay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loogu talagalay oo dharka samaysa. warshadaas ayadana muddo ayay maartay aysan lagu guulaysan in la kiciyo. madaxweynaha Jamhuuriyadda wuxuu amray ciidanka asluubta Soomaaliyeed inay kiciyaan. naqshadii iyo qorshihii waa tusnay, shaqadeedan mar waan bilaabaynaa. mar dhowna ciidamada qaranka oo dhan dhar annaga u soo saareen. marka halkaan xaruntan waxay noqon doontaa xarun wax soo saar oo qaranka Soomaaliyeed leeyahay, gacanta ay ku hayaan ciidanka asluubta Soomaaliyeed.